hey غيو وحيس كذي إلهام عمر هذا إلهام رمضان واي رمضان I know إذا كوا أفرتي لك أنا كويل وصامنا هاي I know واحد عم تخبر كيف صح كذا المرير وكتير مركي ساعة سمناه وحولي وأنا من الصوت لقى ما أفرنا ما هستي قديش I know السلام عليكم عليكم السلام ولا هرت waxaan ka bilaabayaa ilaahanay inaan aad iyo aad walaalo kaaga mahad celiyo shan sida sharaftay aad iga yeesheen nala soo qayb qaadatid Instagram section kan shayga qaaliga labada shay qaaliga bini aadanka la siin karo waxa weeye kalsoonida iyo waqtiga labadaba waan kaaga mahad celinayaa horta ku mudan waan aadan ugu faraxsanahay in aan visually kuwada kulanno aniga huge fan aan ahay marka aadan ugu faraxsanahay caaw inaan wada sheekaysano walaalo adaa mahad iska leh Washington laga daba geeyo xaaladda Washington iyo weatherka iyo maanta galabta say ahayd Washington waa okay and saad u ogtahay hadde pandemic aan ku jirnaa so shaqadeena kastoo way culusaatay and waxaan isku dayoynaa sidii aan uga hortagi lahayn and pandemiga lakin also waxaa dhib weyn dadka kusoo kordhay oo dhinaca dhaqaalaha marka waxaan ka shaqaynaynay programmo dadka caawinayo and marka negotiations aan weli ku jirnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano oo aan hadda dadka masaakiimiinta aan matalno aan ugu faa'iideyno waqtiga yar aan haysano sidii aan ugu dadaali lahayn That's beautiful anaka Sweden anaka lama dareemayaba inaanu lockdown oo leenahay wax iskuuladii way noo furan yihiin 50 people baa naloo ogolaaday so we like why not I know had the population yar aad haysatiin waxaan xasuustaa ilaahay ka daa 10 milyan baan nahay waxa 5 milyan hadda waa Minnesota kaliya intay tahay waan ogolahay waxaan xasuustaa 2005 kii waxaan tagay Stockholm iyo Göteborg Göteborg magaaladayda caasimadana waa Stockholm how did you like it ma ka heshay aadaan uga helay markaasay wiilkayga aan uurkiisaan lahay soo cunugayga labaad 2005 kii ahayd and ingiriiskan soo maray hadda ingiriiska oo khayli iyo buuq iyo madax dhan igu soo xanuunay reer UK waa maqlasan waxaan tagay meel oo dadkii oo dhan hadda ay iska khawabsan yihiin oo firefighter oo qaylinay iyo siren oo police oo yeeray iyo ambulance wax dhan aan la maqlaynin dul iska wada cagaaran dadkii ay iska maskiimiin yihiin marka ani Minnesota aan ahay dadka badankood waa Scandinavian waa Swedish Norwegian ama Denmark ay ka imaadeen ama Finland so marka dadka noocaas iska qabooban hadda waan la qabsanay inta Minnesota marka laakiin magaalo capital oo saas quiet u weligay waa tagay isma dhahaynin marka waad nasiib weyn aad leedihiin waxaan xasuustaa familkayga hooyo dhinaceeda oo tiro badan aad degan Göteborg abtiyaashey ayay ilaaha u naxariisto oo markaas nooleed dhammaantood family tiro badan waaye waxaan aadnay vacation wax oo lagu yaqaano waaye dadka reer Sweden in ay family ahaan vacation wada qaataan oo cabinyaal ay ijaartaan marka I think maybe tradition kaasi Minnesota oo cabinska meeshaas ay ka keensadeen marka aadaad lucky u tihiin meesha aad joogtiin laakiin isku hal maaha hadde America waxaan nahay 360 or more million people marka lockdown is a different situation it is wallahi waxaan rabay xagga waxa ka daawanaya dhalinyaro aad iyo aad u badan waxaan xasuustaa shalay markaan commercialka introga videoga aan soo dhigay hablihii oo dhan waxaadan suwaaro big supporter baan u nahay taageeraan u nahay fans baan u nahay walaalo maxaan rabnaa inaanu noqono politician
ilhaan ma maqlaysaa connectionkaaga kastoo waxaysan annagu kuma maqalnay ilhaan stock don't worry annagu isma dhiibno commentadiina waan xidhay ilhaan way soo celinaynaa isma dhiibno annagu nicimo jokerna sanay ku dhacday sanad u egtiin baynu ugu tirin nicimo joker ilhaan what a sweet girl wallahi way ku soo celinaa ilhaan siratiradeenii dunida oo dhan midig laga loo xiray uugta gabayga midig lagu sharaxay socodka isiray alla bixirka haydaafka qoranta waan ku fogay isma dhiibno amaku isma dhiibno tiibnaba give up habeen dhawatalaan ilhaan waxaa nagula jirtay nicimo joker markaase say kaadida nooga dhamaysa aan u qoslaynay ayaa waxay tidhi warsan iga daaya annaku waan fahmi weynay showis bay noqotay frozen aan noqoteen waxaan marayay ilhaan xabiibti waxaan marayay hablaha dhalinyaro hadda waxaan ku daawanaya hablihii macaawalaalaha iga yaryara oo role model ah u tahay hablaha yaryar maxaa odhan lahayd ee raba footstepkaaga inay raacaan horta waxaan ku dhihi lahay is-aamina qofka markii uu rabo meel in uu gaaro ama uu hami leeyahay waxaa koo muhiim ah in uu asiga is-aamino in hamigaasaytii uu fulin karo and then kabacdi waxaa muhiim ah in dadka oo aad la kulmi doontid ay isku jir noqon doonaan dad ku dhahayo waxaanay timo ku suurtagalaayo iyo dad ku dhahayo hore u soco inaad kala baratid qofkii oo daacad ay ka tahay iyo qofkii aynan ka ahayn aad suubsatid saaxiibo iyo circle oo fiican oo adiga ku fududaynayo sidii aad ku noqotid qof oo dhiirigelin leh oo meeshii uu gaari karo politics waa sport ay dhahaan it's survival of the fittest anybody oo sports ciyaaro wuu fahmi karaa and truly it's about practice right and crafting yourself into being the best that you can be and then politics kana I think dumarka way u adag tahay because dadka badanaa ma aaminsana inaanaka leaders aan noqon karno inaan wax maamuli karno in guriga maahine meel kaleete aan kasoo bixi karno badanaa waxaad arkaysaa ragga markii ay dhahaan siyaasiya noqonaya qof oo weydiinaya male maxaa taqaanaa maxaa og tahay maxaa fahmi kartaa gabar laakiin everybody wuxuu rabaa in uu boqol wax weydiiyo steps uu marsiiyo and then nimanka also expectationadii kaleet way ka kala yaraanayaan waxaa lagu leeyahay walaalkaa hamiyuu leeyahay waxaan u fududeey kan u suubi kaas u suubi gabadha waxaa laga rabaa iyada wixii oo dhan inay suubiso and then hamigeedina iyada inay gaarto waxbarashada taas waaye wax kasta gabar ay raadsanayso wixii shaqooyinkii dumar ahaan loogu talagalay iyo wixii kaleeta ay rabtay waaye ragga jidadka looga dhaqaajinayaa wax kastoo obstacle ah waa laga leexinayaa so I think badanaa dumar haddaan nahay laba choice aan haysanaa soo maaha inaan hamigeena aan raacno oo wixii aan rabno aan noqono ama in aan normal caadi iska dhigno oo ilmo aan korsano gurigeena aan joogno qof xaaskiisa aan noqono marka traditionally way nagu adag tahay maskax ahaan in haweeney oo ilmo haysato guri maamulanayso guriga banaankiisana hami ay ka yeelato hamigeedana uu yahay hadde hami weyn oo rabto wax weyn inay taariikh meel fiican ay ka gasho marka challenge-gu wuu weyn yahay inaadan waxaas dhag u dhigin oo aad iska fahantid like that's just
tradition, and you just bulldoze, you go for it. And you know, for me, life it's been that way. I had children very, very young. Gabadhayda ugu weyn hadda waa almost an adult. And I also have a little baby to the jir and you know, like life just continues. You know, you just figure out and you just continue. And like dadka waxay ay ku dhahayaan qofkii ku dhahayo shaqadan adig ma lagugu talagelin, booskaas ma gaari kartid, jagadaas ma heli kartid, waxaas dhan dadka u dhigin, because I mean dad anoo kaleetaa jiro oo I shouldn't be meeshaan maanta aan joogo, but I'm here because I believed in myself and everyone else did. That's beautiful, wallahi. That's laba wax baan ka qaatay Ilhane, waxaan ka qaatay believe in yourself, you have a good circle, good real friends, yani dad kalsooni ku qabtay. That's beautiful advice. I mean, it's timely, right? I think dadka badana like waxa qofka oo dadka circle-kaaga ku jiro, you think haddii aad iyaga ka tagtid wax ma ku suurtagalayo, and sometimes you have to let things go in order to create more space for others to come in who are going to help you be the best person that you can be. That's beautiful, wallah. Ta kale aan Ilhane walaal aan rabina ku weydiina, what inspires you? Yani what motivates you? Hadda the shanta Soomaali oo dhan ba proud of you. Yani hadda caawa xagan mas'uuliyiintii ba ku jira, wasiiro, xildhibaaniin, dadkii magac iyo sharaf ku lahaa, bahdi fanka, sportiska, Soomaali oo dhan ba matasha maanta. Difficult hard times no waa haysata here and there. Maxaa motivates you? Adiga maxaa ku motivate gareeya, you inspires you every day to go to the work? I know adiga in adiga rooneeda u maleynay Somali English challenge aan wada haysto labadeenaba. I'm not in your level yet. Level ka ma gaarin. Somali isticmaashido aan ka xado adigina. Ya Ilaahay. I think like motivation meel kasto uu yaala, right? Haddii aad raadsanaysid wax kasto wuxuu ku noqon karaa motivation. Aniga I think mostly waxaan motivated aan ka ahay like ciyaalkayga. I know yaraanteydii waxyaalo badan possible maynan ii ahayn because environmentigayga different ahayd. And I motivated ciyaalkayga inuu every single thing possible uu ahaado, so I want to create a different environment than the one aniga aan kusoo koray, culturally, politically, religiously, and family-wise. You know, I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in. Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment. You know, we forget that there are so many challenges, there's so many obstacles that can be removed if there was a societal growth. Okay, wow. And so I think ciyaalkayga waxaan politics ugu jiraa for them and other ciyaalka oo iyagoo kaleeta la mid ah. And so I can create, you know, social, economic, and environmental equality, so they can exist in a better environment than me. I think badana dhibaatooyinka badan aan la kulmo really is out of that motivation, because ma aaminsani like waqti badan inaan haysano, right? waxaan aaminsanahay waqtigeen aad u yar yahay to be impactful. And so dadka badana waxay aaminsan yihiin like 10 sano iska sug, 20 sano iska sug, and then eventually you'll get somewhere. And I think, you know, like ciyaalkayga time ma haystaan, ciyaalka kale adduunyada ku nool time ma haystaan, so we do what we can today, as much as we can, so there's a better environment for the generation, you know? Yeah. waan ogahay inaan waqti hayn. Saddexdeedii su'aalood back to back. Favorite food? Favorite food, bariisi hirbari. Yes. Very Somali that way. Moss la'aan, like I'm not a fan of moss.
Here we go. A Somali household without banana. Ma ha Somali. Yeah, actually, like Somali DNA was very interesting because wax kasta waxay rabaan Somali inay most inay ku cunaan. I don't know like Kenan because I need most cuni. That's beautiful. So they're very strong Somali DNA. That's a better wallah. Hey, McDonald's, I'm a Burger King. McDonald's. Fries score is excellent. Mercedes, I'm a BMW. None. I don't like flashy things. Gaariyaasha jarmalka waa ka soo horjeedaa obviously. Very simple girl. waan ogolahay taasa iyo baan rabay walaalo su'aashan cid kastoo aan ku soo xidhaa maxaad uga tegaysaa fariin kunamaanka kuna hadda ku daawanaya iyo kuwa gadaalba kaa daawan doona oo fursad bay hadda haystaan inay ku walaalkaan dhammaantoodba I mean laba fariin aan uga tegi lahay mid ku saabsan pandemic-aneyd hadda aan ku jirno dad waxaa jiro oo nasiib leh adiga meesha joogtid oo kaleeta joogo oo dhaqdhaqaaqooda uusan ka xayirmin oo noloshoodii sidii caadiga u wadan lahaayeen wadamo dad aqli ay leeyihiin ay rangaraynayaan ama madaxweyne ay u yihiin ku nool and then dad anagoo kaleeta oo madaxweyne aan science iyo waxba aanan aaminsanayn uu madaxweyne u yahay I want dadka labada dhinacba ay ku nool yihiin in mid ay xasuustaan in anaga oo dhan hal adduunya aan ku wada nool nahay right kulligeen connected aan nahay so adiga whatever maanta aad haysatid qof walaalka ayaanan haysanin qof walaalka maanta wuxuu haysto inaan adiga haysanina laga yaabaa and that's okay and the best thing we can do is wish the best for everyone else in aan ku fikirno like globally maxaan dadka ku taakuleen karnaa maxaan qaban karnaa anseen qof kaleete booskiisa isku dhigi karnaa oo aan uga fikiri karnaa dhibaatada haysato ama wixii situationka uu ku nool yahay and I think that makes us a better global citizen if we're worried about others we become better global citizens and then I think secondly because waxaa tiri dhalinyaro yaryar oo badanaan na fiirsanayaan and I think this is just message ahaan Soomaalida waxaan badanaa ilownaa Soomaali haddii aan nahay in kulligeena aan hal family nahay qof kasta oo Soomaali ah wixii dheefkana waa isla sheer garaynaa dhibaatadana waa isla sheer garaynaa so maanta Ilhaan Cumar haddii ay tahay congresswoman adduunyada oo dhan waxay qof Soomaali kasta ay arkaan waxaa laga yaabaa inay jidka joojiyaan ay dhahaan Ilhaan ma taqaanaa Ilhaan congresswoman waa qof walaalkeen maanta haddii dhibaato uu geysto ama uu dembi galo qof kasta oo Soomaali ah oo laamiga maraayo waa la joojinaya waxaa la leeyahay ninkaasaytii oo dadka dilay oo magaciisiga suubiye Soomaaliga ma taqaanaa kaas mis taqaaniin so marka haddii aan dhibki iyo dheeftibo aan isla wada wadaagno inaan xasuusnaano right in annakii aan isku noqono family oo isku safeguard gareeyo right oo iyagii is og oo dareensan aniga maanta wax kasta aan meel kasta aan gaaro walaalkii xumaantiisa ima dhaafayso aan dhibaato kasta aan leeyahay walaalkii sharaftiisa aan ku xiisan karaa so markii aan wadankeena ka fikirayno markii aan ka fikirayno dadkeenan diasporada ku nool markii aan ka fikirayno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikirayno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle garaynayo in aan xasuusnaano qof Soomaali xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegno Soomaali wanaagiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegayno aan uga fikirno truly because ani family weyn aan ka imaaday and like family is complicated but ultimately we're family so maaha like family is very complicated and wixii anaka family ahaanteena aan xasuusnaano like to wish each other the best
to wish each other. And to ultimately help one another when we are struggling. I see dhalinyaro badan oo Somali oo addiction la struggle garaynayo, and dadka badana ay si xun uga hadlayaan ama ay rafaadinayaan ama ay dhibaataynayaan. I mean, you'll see like that mental illness and struggle garaynayo, hooyooyin masaakiimiin ciyaal yaryar keligood korinayo, dadka xumaantoodii ay ka shaqaynayaan. Meeshay dhihi lahayn qofkan familkeygii waay, walaashayoo kaleeta aan uga fikiro, walaalkeeyoo kaleeta aan uga fikiro, maxaan ku suubin lahay maanta hadduu walaalkey ahaan lahay cabdigaasay tilaamiga taagan, maxaan ku suubin lahay haddii caasho oo 3 ilmood haysato ay walaashay ahaan lahayd, and saas aan iskugu take care garayno, because adduunyada family ahaan ay noo aragtaa, adduunyada waxay noo taqaanaa in aan is wada naqaano. You can't imagine every single where I go, dadka way istaajinayaan, and they're like, oh, Will, New York dagan ama ko Sweden aan ku soo arkay, you know, somebody like Finland, there's some guy in politics mistaqaanin, waxay u maleeyaan kulligeena inaa Rolodex meel aan ku haysano oo check aan suubinoyno, so heer wuxuu suubiyey kanna aan caash intay martay cali intuu yeelay. Hey, that's like truly, that's how they think, you know, because familka waa okay soo aha, you know, walaasha waxay ku soo kacday iyo walaalkaas uu ku seexday. They assume anaka that way inaan u function galena, accountability inaan u leenahay for one another. And so to think that way, like to also do have accountability, to think, so walaalkiisaan ku caawinaa, walaashaysaan ku caawinaa, and I think that's ultimately Somali ahaan saan ku guuleysanayno, Somali ahaan aan meel fiican ku gaarayno, Somali ahaan saan anaka isku aragno si adduunyada noogu aragto. You know, that was amazing wallahi. Waxa ka dambaysa oo Mama Jawahir Barqab oo gudoomiyaha haweenka Muqdisho iyo gobolka oo dhan oo kugu xigta hadda, maxaa iyadana fari lahayd ama su'aalaha si weydiin lahayd? I know shaqadooda inay aad iyo aad ay u adag tahay, you know, Soomaali markasta aan ka hadlo waxaan ka hadlaa inta dhibaatooyin ay soo martay iyo progresskii ay suubisay. So Somalia badana, you know, dadka waxay ka fikiraan like xumaanteeda keliyo, and I think it's important inaan xasuusano meel fog inaan ka imaanay. And intaasaytan alxamdulilah aan dhahno, you know, like dadaa kasoo shaqeeyey, dadaa joogo, dadaa noloshooda riska garay every single day. Ani waan tagay 2 mar, bad waan soo baxay. Dadaa jiro oo joogo oo shaqadaasayta qabto oo isku dayaayo progress. You know, whatever you can say about them, still they're putting their lives at risk and doing the work. And I think dadka oo Jawahir oo kaleete oo shaqada ka shaqeynaya shaqooyinka ku saabsan sidee society ay uga shaqeyn lahayd dumarka iyo gabdhaha nolol fiican in ay ku yeeshaan wadan ay ka yihiin majority oo ayna yihiin dadka ugu dhibaataysan, waa shaqo muhiim ah. Marka Ramadan Mubarak aan bahaya, Eid wanaagsan, and Ilaahay ha ku fududeeyo, and Ilaahay ha ku mahad celiyo shaqada ahaysid. Anakuna waxaanu ku leenahay anoo ku hadlayo kuna maanka qof walaalkay Mataan, waxaanu ku leenahay Ramadan Mubarak. We love you, we support you. Thank you for coming by, Ilhan walaalo. Love you guys, bye. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Wow. إلهام عمر. Yeah. إلهام عمر. Wow. That was amazing. إلهام, thank you والله. Hey, that was my first guest. هذا الحبيب وين يا؟ ماما أم خالص. ماما جواهر بارقم. oo nagala soo hadli doonta